wararkii ugu dambeeyay ee ka soo kordha arrimaha soo galootiga iyo immigrationka. madaxweyne Donald Trump intii uu soo laabtay marka labaad dalkan Mareykanka waxaa ka dhacay waxyaabo badan oo isbedel ah oo kulligood la xiriira arrimaha soo galootiga. haddaba warkii ugu dambeeyay oo maanta soo baxay waxa ay sheegayaan in arrinkan isaga ah dadka soo galootiga darbiga boodka kaliya aan uusan ahayn bartilmaameedka maamulkan ay ku jiraan qolyo kale oo markii hore aan la tataaban jirin. qolyahaas waxa weeye qolyaha xaasaska u ah dadka dhalashada dalkan Mareykanka haysta. haddaba groupkaas group gooniya bay ahaan jireen oo aan la tataaban arrimahoodii, laakiin haddeer waxaad moodaa in loo soo dhigtay iyaga naftooda. oo waxaa la warinayaa maanta raadiyaha dalkan Mareykanka ugu weyn NPR-ta uu warinayaa in dad 1,400,000 oo qof oo dalkan ku nool oo xaasas u ah dad dhalasho haysta ay layn ugu jiraan in sharci la siiyo. marka waxyaabihii ay bedeleen waxaa ka mid ah in dadkaas markii horeba horta haddii viisaha ay u diideen 75 wadan dad ku nool ama ka soo jeeda hortay viisaha u diideen, that means 75 wadan oo liiska ay saareen waagii dhaweyto aad ku jirto wax viisa oo lagu siinayo ama xaaskaaga la siinayo ma jirto ayay yiraahdeen. tii waa la iskala soo tagay dadka hadda gudaha ku nool Mareykanka dhexdiisa oo iyaga naftooda sugayay in ay qaataan green card oo ay ku qaataan guur qof citizen ah ama dhalasho dalkan haysta uu u qaadi lahaa ayaa iyaga naftooda ay buuq ku fureen. marka arrimahooda way sii adadkaynayaan. dadkaas waxaa la yidhi lama taaban jirin marka hore oo waa dad waxaa la gelin jiray qayb gooniya oo qof Amerikaana baa qaba xushmad gooniya bay lahaan jireen. laakiin arrinkii isaga ahaa waa adkaaday. waxaa kale oo la warinayaa 300,000 oo qof in ay dalka dibaddiisa ku nool yihiin oo dad Mareykan ah oo dalka Mareykanka jooga ay xaasas u yihiin oo ay qabaan. haddaba dadkaas naftooda waxay sugayeen in la soo qaado visa la siiyo hataa hadday ka soo jeedaan wadamada aan baanka ama aan laga mamnuucin dalka Mareykanka oo baanka uusan saarnayn. hadday ka soo jeedaan hataa weli waa ku adkaynayaan maamulkan. marka 1,400,000 oo qof oo dalka Mareykanka dhexdiisa joogta baa waxay sugaysaa baa la yiri inay green card ku qaadato arrimaha guurka. laakiin maamulka ayaa wuxuu bilaabay in dadkaas naftooda uu ku beeriyo dadka cadaadiska la saarayo oo la qabanayo inkasta oo dad Amerikaana ay qabaan oo xaas u yihiin. waxa kale oo ay ku soo kordhiyeen baa la yiri baaritaan dheeraad ah dadka xaasaska ku qaadanaya sharciga oo deganaanshaha rasmiga ah iyo green cardka ku qaadanayo more scrutiny baa lagu bilaabay baaritaan dheeraad in lagu sameeyo. waxa kale oo iyagana ay soo kordhiyeen waa dhaweyto in dadkaas green cardka marka ay qaadanayaan immigration officer oo la yeesho interviewgaas iyo xog waraysi ka baaxad weyn kii marka hore la marin jiray. marka hore waxaa dhici jirtayba in hataa aan interviewgaasi aan lagu marinin until ay ka gaarto 3 sano oo aad qaadanayso dhalashada. marka hay-adahan u dooda arrimaha looyarada immigrationka oo dhan qolada qaabilsan nin u hadlay iyo haweeney dadkan u dooda arrimaha immigrationka ayaa intaas iyada nafteeda soo warisay. waxaana ay leedahay dad waxaa jira dalkan ku noolaa oo Mareykanka ku nool oo haddeer Trump markuu qabsaday kadib shuruucdan iyo waxan intay ka cabsadeen waxay isku sameeyeen waxa la yiraahdo self deportation. ayaga ayaa istarxiilay. haddii aabka la soo saaray waagi dhaweyto qofkii raba inuu istarxiilo oo dalkiisii ku laabto wuu ku laaban karaa baa la yiri. marka dad badan baa waxay bilaabeen in ay sameeyaan arrinka isaga ah. sidaa uma wada badna meeshaasna waxaa ku kala tagay baa la yiri famiilo isqabay oo Amerikaan ahaa qof Amerikaana iyo qof sharci suga ahaa ayaa arrinkaas ku kala tagay. marka dadkaas waxay isku sameeyeen baa la yiri self deportation. iyaga dalkooda iska tarxiilay waxayna ka cabsanayeen in qabtan intay ku dhacdo sharci la'aan ay ku dhacdo qofkii qabayna uu mas'uul ka noqon waayo. marka arrimaha immigrationka iyo soo galootiga dalkan aad iyo aad bay oga sii darayaan marka kasii dambaysa. group la ilaaliyo bay ahaan jireen. waxaa ka mid ah hataa niman military ah xaasas ay qabeen oo la xiray waa ogeedeen waagi dhaweyto oo ICE ay xirtay. marka kuwaas hataa naftooda
dhib ayay sheeganayaan oo in groupkaas oo dadka militariga ah xaasaska u ah lama taaban jirin ba iyaga naftooda waxay lahaan jireen meel si gooni ah maa loola dhaqmi jiray dadka iyagana buuq ayaa lagu furay iyaga naftooda oo xaasaska u ahaa marka dadkan waxaa la yidhi immigration administrationkan ama maamulkan waxa uu ula dhaqmayaa like all other immigrants dadkii kale oo dambikaboodka ahaa dadkii asylumka sugaayey iyo waxay isku dhex dareen dadkii guurka wax ku sugaayay marka interviewdii waa la badiyey oo su'aalihii iyo xogwaraysigii waa lagu soo kordhiyey oo waxaa la qaadayaa xogwaraysi iyo interview cusub baa lagula yeelanayaa marka green cardka qaadanaysa so green card interviews baa la bilaabay markii hore waa la samayn jiray sida laakiin way ka fududeen because hadda baaritaanka ayay waxay u badiyeen maxaa kaa galay taas waa mid waxaa kale oo ay soo kordhiyeen in 75 wadan viisaba ay u diideen so sida hadda ay sheegeen qolyahan waxay sheegeen 300 oo kun oo xaas ama deesay ha ahaado ama oori ha ahaatee xaas oday iyo gabar kay rabtaba ha ahaatee in dalka dibadiisa ay ku maqan yihiin laakiin maraykanka dhexdiisa 1 milyan iyo 400 oo kun oo qof ayaa sugaysa barnaamijka guurka inay ku qaataan sharciga green cardka arrimahaas oo dhan baa soo kordhay waa daba ceyrsanaya marba waxaa soo baxaayo sheeko cusub oo caqabad ah oo diidaysa ama ka hor imaanaysa dadka in ay dalkan ay sharci ka helaan oo caqabad hor leh ay marba keenayaan waxaa kale oo jira markii hore waxaa la yidhi dad badan oo foomka I-130 la yidhaahdo waa petition for alien relative qof aan sharci lahayn oo maxaas ahaato oo kale markaa keenayso ama odaygii ha ahaada foomkaas ayaa loo buuxiyaa marka petitionkaas aad buuxsatay uma qalmo bay yidhaahdeen waxaa hadlay maamulka dad u hadlay oo especially qolyaha USCIS-ta oo iyada ku fogan in ay applicationada process garayso ayaa waxa iyaga naftooda waxa u hadlay afhayeenkooda so afhayeenka qoladaas wuxuu sheegay foomkaas buuxitaanka aad buuxisay statuskaagii iyo wixii aad marka hore ku sugnayd wax badan kama bedelaysa buu yidhi sharcina kuma siinayso waa in aad soo martaa sharciga waa in lagu soo mariyaa magaciisa waxaa la yidhahdaa color marka color hadalkiisa wuxuu kusoo koobay dalkan haddii aad inspection la'aan kusoo gasho derbiga aad kasoo booday ama aad rabto dalka inaad sii joogto as an illegal alien waxaa laga yaabaa in tallaabo laga qaado oo lagu dhoofiyo marka hore waxaan jirtay qofka isagoo oo derbiga kasoo booday oo sharci aan haysanin wax inspection aan soo marin haddii qof Amerikaan ah dalka ku guursado wuxuu ahaan jiray oo citizenship haysto dhalashadii qaatay wuxuu ahaan jiray qof aan la taaban jirin laakiin groupkaas naftooda haddeer waa loo soo dhigtay oo haddeer ninkaa u hadlay USCIS-ta ayaa arrinkaas sheegay waxaa kale oo jira in wax kasta ma xuma 2024 343 kun oo qof baa waxay heleen green cardka deganaanshaha rasmiga ah iyada oo loo maraayo dhanka xaaska so 2024 waa ogtihiin waxaa haystay madaxweyne Joe Biden baa haystay so dadkaas almost 500 oo kun ku dhawaad baa qaadatay numberkaasna wuxuu ka badnaa baa la yidhi numberkii 200 oo kun ahaan jirtay sanadkii ilaa 340 kun ahayd way ka badnayd so halkaas sana keliya ayaa waxaa ku qaadatay sharci green card ku qaatay xagga guurka 343 kun oo qof baa ku qaatay marka arrinka isaga ah wixii waa soo afjarmeen 2025kii madaxweyne Trump ayaa la wareegay waxaana ay bilaabeen maamulka inay soo daayaan arrimo badan oo wax ka bedelayo sidii ay wax ahaayeen waxaana moodaa inay aad uga xanaaqsan yihiin dadkaas ama derbiga ka soo boodaan ama dalka guurha ku soo galaane dadka faraha badan oo xilliga madaxweyne Joe Biden ka faa'iideystay oo dalka soo galay marka arrinkaas ayay keeneen mar labaad oo ay ku soo kordhiyeen groupkaas aan la taaban jirin haddana buuq baa lagu furay average processing timeka macnaha processing timeka xilliga averageka ah isku celcelis wuxuu qaadan jiray baa la yidhi 13 bilood dadka guurka lagu keenayo ama saaxiib ha lagu keeno ama qofka ha lagu keeno guur caadi ah ama fiancé ha ahaado waxa ay yiraahdaan ama ha ahaado qof guur caadi ah maray waxa uu qaadan jiray usually 7 bilood 6 bilood ilaa 7 bilood buu qaadan jiray laakiin haddeer sheegin wax ka jira male waxaa la xareeyay baa la yidhi 2026kii sanadkaas
hadda aan ku jirno 167,401 qof oo petition baa la xareeyay. Petitionadaas waxaa laga approve gareeyay oo la ogolaaday keliya 8,612 bes baa laga ogolaaday. Inta kale ku dhawaad 150,000 167,000 bay ahayd 150,000 ku dhawaad weli pending bay ku jiraan, miiska hoostiisa yaalaan. Dadkaas marka ku jirto pending oo sugitaanka hala geliyo waxay ahaan jirtay qofka mar haddii uu waxa processka uu maraayo ama waxa uu apply gareynayo ay tahay guur oo qof American citizen uu qabo, sugitaanka dhib ma lahaan jirin. deerto sanad ha qaadato, deerto 2 sano ha qaadato, waxay ahaan jirtay wax iska fudud oo qofkaasna immigration enforcement kale oo la samaynayo dadka dambika boodka dadka dambiilayaasha ah dadka waxaas kuma jirin oo ma soo raaci jirin. ayaga waxaa dhici jirtay dadkaas in laga xishoodo oo laga leexleexdo maadaama qof Amerikaan ay qabaan. marka 167,000 oo petition oo la xareeyay in 8,000 kaliya laga approve gareeyo oo 150,000 weli hadda pending iska yihiin waxay cadeynaysaa sheekada aan sheegayo oo ahayd 1,400,000 oo qof oo Mareykan joogta baa sugaysa inay sharci ku qaadato guurka. 300,000 waxay dibadda dalka dibadiisa ku sugan tahay oo waxay sugaysaa in iyagana sharci inta soo siiyo visa la soo siiyo actually dalkan ay imaadaan. so visa naftiisa waxaan idin sheegayay 75 wadan hadda ka soo jeedo oo dalka dibadiisa ah visa kuma siinayaan waxay joojiyeen waagi dhaweyto. marka kale anaga number 1 iyo number 2 waan ka nahay hadaan Maryo leenahay, laakiin arrinkaas ayaa soo baxay maanta. intaas ayaan rabay inaan insha Allah taala arrimaha immigrationka iyo soo galootiga aan idinka dabageeyo in dadkii guurka wax ku qaadan jiray iyaga naftooda laga daba imaaday oo privilege-kii iyo karaamadii hore ay u lahaayeen oo goonida ahayd aysan